taliska ciidanka booliska Soomaaliland oo weelinaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa ay soo bandhigeen mid ka mid ah gorgorradii dadka cuni jiray kaasi oo nin ku weeraray deegaanka oo kadibna uu ku guuleystay inuu dilo gorgorkan iyo nin kale lagu magacaabo Maxamuud Cawil Cali ayaa waxa la keenay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliland halkaas oo saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha ay ku soo bandhigeen waqtiga gorgorkaasi iyo ninkani ka badbaaday Maxamuud Cawil Cali oo ah isninka isagu ku guuleystay gorgorkan inuu dilo kadib markii weerarka ku soo qaaday ayaa waxa uu ka warbixiyay qaabkii gorgorkan uu soo weeraray sidii uga badbaaday kadibna uu dilay oogiyobu u dhaxeeya badweyn waa dhexdooda weeye halka meherada yar baan ku haysto dabadeetana subaxii abaar 8 iyo barkii markay ahayd meelaha ayaan sirixaaba soo guro ka bacdi waxaan dareemay guux wadooyinkaan eegay dabadeetana wax baabuur oo soo socda waan arki waayay marka hawadaan eegay hawada markii aan eegay waxaan arkay bahalo soo degaya oo dhowr iyo 11 midha oo igu soo degaya baan arkay oo lugaha iyo afka soo laalaadinaya dabadeed mid kamida ayaa markaa hoos igu soo degay qori baan sitay meel buu igu tiirsanaa ka bacdi waxaan markaa da'aan isiri bahalkani waa wixii dadka cuni jiray xagga qorigii u kaba dabad qorigii intaan gaarin ayuu markaa wuxuu igu bilaabay baalashii igu bilaabay dhirbaaxu igu waalay dabadeetana anigoo yar sirqaysan ayaan markaa qorigii gaaray qorigii markaan gacanta midigta la haleelay ayuu halka labada garab iskaga taagay dabadeed markuu labada garab iskaga taagay ayaan markaa gacanta bidixda halka maaragtay cuddaa luqunta ayaan ku qabtay markaa waxaan iska ilaaliyay oo aan isriiday afkan dheer yaanu ma garanaysaa ee maskaxda kaaga diloolin dabadeed xoogaa markaa way soo gaadhay oo halka ma garanaysaa madaxa ayaa uu afka iga soo yar gaarsiiyay markaasaan waxa weeye u arkay inaan markaa hayo luquntii uu ila dagaalamay lugihii buu igula dagaalamay markaa oo markuu maryaa iga jeexjeexay waa markuu markaa ii geystay dhaawaca magaranaysaa xagtimaha badan markaasaan qorigii adigu haleelay markaasaan xabadda ku dhuftay xabadda markaa ayaan ku dhuftay kuwii kale way igu dul weehanayeen dabadeetana markii ay arkeen dee xabaddan meeshii ka dhacday ayay markaa iyaguna kaceen way kaceen xaaladuniyo sidaasay ahayd markaa adigu waxyeeladuna aan qabaana adigu waxa weeye xoogaa weeyaan aan waaweynayn insha Allah waan ladanahay sidaasay ahayd muddooyinkii ugu dambeeyayba waxaa deegaamada Soomaalida qaar ka mid ah qaar ahaan dhinaca hawdka iyo waliba dhinaca gobolada bariga dalka laga sheegay gorgorro weerar ku qaadaya dadka kuwaas oo la sheegay inay caruur ku cuneen deegaamo ka tirsan dhinaca hawdka iyo qaar kale laga badbaadiyay waxaana goobaha baraha bulshada qaarkood lagu arkayay gorgorro tiro badan oo la dilay iyadoo taas ay muujinayso in gorgorradani dadka weeraraya aanu ahayn mid kaliya balse ay yihiin qaar tiro badan gorgorkana ayaa noqonaya mid ka mid ah gorgorradii dadka weerarayay kaasi oo ninkan Maxamuud Cawil Cali lagu magacaabo uu ku guuleystay inuu kharajiyo waqtigiisana lagu soo bandhigay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliland qadar macallin deeq bulsho TV Hargeysa